kulan ay isugu yimaadeen beesha jareer weyne ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa waxa ay yeesheen kulan ay kaga arinsanayeen arrimaha beeshaasi. warbixintani waxa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Cabdilaahi Philippine. kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beesha jareer weyne. kulankan ayaa waxa soo agaasimay jaaliyada beesha jareer weyne iyagoo u soo horjeesay nidaamka 4.5 waxayna dawladda federaalka ugu baaqeen in xaqooda la siiyo waxaana hadaladooda kamid ahaa waxa kale u dulmanahay oo ku dulmanahay macnaha political ahaan waa u dulmanahay waa kada tan waa 0.5 ka chasing oo dadka u yaqaan 4.5 waa ku dulmanahay political discrimination political marginalized waa lagu marginalize gareeyay waa lagu soo xusul riixay ma qaadanayno 4.5 anagu nugu soo laqaya Soomaa guriga naga dhaxeeya maadaama guriga naga dhaxeeyo dulmiga waa qaadanaynaa laakiin se waa ka doodaynaa oo codkeena banaanka dhigaynaa dacwada haday taana Allahna uunteeya u dacwoonaynaa saas darteed rasuulku wuxuu yiri kun madluum walaad kun zaalim because Allah ayaa ku qaadaya xaqaaga waxaan annaga halkaan ka jeedinaynaa oo diidanahay oo ka soo horjeednaa 4.5 waayo 4.5 waxa loogu talagalay in dad xaqooda lagu baabi'iyo oo dad lagu duudsiyo annagu waxaan degnaa 9 gobol ee dadkan waa isku wada mid isku mar bay dhasheen nin walba 9 bilood buu calool oo ku jiro ku dhashay annaga dadkan ka midna ilaa hadda 25 sano wax xaq ahoon helnay ma jiro waxaan ula dan leeyahay ilaan ma la xaqiri karo ummadan oo jirto oo ma aragtay 9 gobol degan oo degan in ka badan 10 kun oo tuulo degan waa ummad aad u tiro badan dadka qaarkii waxay dhahaan xitaa aniga hadda markii la leeyahay 4.5 xitaa hadii 5 la dhaho Soomaalida kala 4 hal la siiyo adiga idinka hal la siiyo hal naguma filna maxaa yeelay waxaan sheeganaa oo nahay in aan nahay dad ma aragtay Soomaali markay 100 ay tahay in aan 60 gaarino ama aan ka badanahay maxaa yeelay 10 kun oo tuulo degnaa deegaankan waxa iska la qofka markuu tuulo leeyahay hadii 72 ayaa laga soo bixiyay Soomaaliya aadan Cabdullaahi ugu horeeyo haji wahliya u dambeeyo waqtan nidaamisa maxaa ku qoran Maxamed Siyaad Bare dadkii dhulka loogu yimid ha u dirin banaanka indhoodiye furmin dadka bari anaka inta tagayna waqtan dil Soomaaliya laga soo bixiyay nidaamisa waxa uu horay aadan Cabdullaahi Usmaan ayaa u horay haji wahliya ayaa u dambeeyo marka balaashanka maanta ha fiirina balaashanka waqti dheer uu socday adigana waxaad fiirinaysaa muslimnimada bini'aadina idinay no aniga bini'aadinimada nin Afrikaan ay xarunta Soomaali baantu hadanaay aniga xaqayna waxa waaye maanta dagaal inaan galno wax cad banaanka taala waana imaana haddana wax aanan ka filin bay ummadda beelaha jareer weyne ee dega 9 gobol ee Soomaaliya waxay ka soo qaadeen beelaha inay yihiin dad nus ah walow aysan walibo 0.5 ka aysan ahayn beelaha jareer weyne kaliya ay ku soo dareen dad badan oo walaalaheena islaamka ah aan aad u cambaareynayno in la dhahaba 0.5 taasoo aan aad ugu cambaareynaya beelaha dega Soomaaliya maanta shirkan jaraa'id oo dhalinyarada soo qaadqaadisay aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan ka hadli lahaa dhalinyarada hortayda uga hadashay Maxamed Cabdi Cabdilaahi Philippine telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Nairobi.